geedkan waa dhuyac weligiiba waa dhuyac iyo faruur iska dhex baxay. qaalmalagad haddaad maqasho waa ka qaalmalagad isagoo yar, isagoo weyn waa ka oo qaalmalagadkii ah. geedka hareeriga ahaa oo arigan muushka ah isna waa ka. wab halkan aynu ka soo gallay geelii baashiisii. geelu saan idiin sheegay laydhku inaga haystay maahaane geel maqan ama baadi ku maqan ma aha. waxayna hadda arago un laba kooroodoo xaasa weeye. abaldhulkan eega waxa xaab yaalla, waxaad aragteen waa hareeri weeye maasha allah. hasha markay iligta saa u saarto ayuu cagaar iska rogayaa, waa macnaha waa cusub yahay. haas waa dhagax keligii toonta iska dhex yaalla oo madow, dhagax madow oo shiila oo keligii meesha iska yaalla toonta dhexdeeda. hadduu doono waa wax ku ool weeye hadduu doono. geel halkan aynu ka soo gallay koortiina waa maqlaa. hashatan kuusaa la yidhaahdaa, kuuso waxa loogu bixiyey wataa waa qaalin yar. hashaa aragtana waa curatay la socda. igadh bay ahaan jirtay oo le gaawaha la dari jiray. boqol baa laga eriyaa, boqol oo waxaan halba ahayn. bidhaanteedana waxaad moodi qaalin 4 jir taasoo qardhaas bay qabtaa. kuuso ayaa la yidhaahdaa, kuuso. halkan waxaa iiga muuqata hal geela xalay ka dhaxday. hashan geel xalay way ka dhaxday, keligeed baa xalay iska dhaxday meel fadhiisatay. niman yow mucjisada ilaahay, geelu waxaa la yidhi mahmaaba waxay tidhaahdaa geel ma hadho iyo ma haraatamo midna lama dhaho. hashan waa saluug, cimrigeed iska daa inay dhaxda oo keliga dhaxday xataa ma gadaalinin oo iyadoo dib u hadhaysa lama arag. iyo marka dhowr habeenoo lasoo dhaafay hashani way gadaalinayso, dib bay macnaha waxaa weeye geel uga hadhaysay. xaalina wayba dhaxday. anuuse mid baa niyow dareensanahay. hashan iyadoo seexseexanaysana waan arkahayey aada u jijiifta. hashan waxaan u malaynayaa caloolqabad baa haya. wayna yar wiiqantay oo waad aragtaaba wuu yar wiiqantay ka muuqdaaba. hash geel ugu xoog banaan jirtay bay ahayd. markaashan waxaan umaan dhanihii iyo wixii muuji caloosha hashan yaa laga qabtay baan filahayaa. inay maalinkii oo dhan meelaha fadhfadhiday oo siday meelaha u fadhfadhiday un gabalku markuu dhacay gaajadii kusoo baxdo iska miratay baa laga yaabaa. laakiin hashani hal dib boota ma ahaan jirin runtii. waa xilli gaaban oo cadceeddu liiqa sii dhigayso. xilli gaaban weeye. koorihii geel xaaska ee maqnaa mid baynu haynaa. tii kalena waxaan filaya iyaduna inay un weli meelahan xagga laydhka inaga haysato. marka weli waynu sii soconaynaa, xaggan aynu sii soconaynaa.
waanan isku ururinaynaa geel insha allah. geelan mar dhow waynu kaxaynaynaa, geeli kaleaynu u geynaynaa. hadda wuu iska daaqahayaa geelu, mana kala foga. maalina fogeyn qaalmo la gaday ayay qaalintana ku jirtay. waa aragtaan bay la tahay, ilaan balaaggii iyo sumaddii baa iskor fuulay. nimaan abti ahay baa intuu yidhi ilaan balaag baan ku suntay iyo wuxuu ku dhigay miin foolxum. markii dabka ahaayo qurux badan baa ay kor saaran, kaasina wuu iska maydhmi doonaa. miinkii cilaanka ahaa ama madoobeysada foosha xumaaya wiilkan abtiga ah ku dhigay. miinkii oo dab ahoo permanent ahoo maxaa weeye qurux badanna wakaa aan dul saaray, waa iska ignore gareeyey kiisii.
halkan waxaa idinka muuqda geed dhan oo hareeri ah oo saaxiibayaal qalalay gebi ahaanba. maantaasaa ka fayow oo wax yar un ka nool. artaanba halkaa laama 3 iyo 4 mooji waxa yaa yar qoqoyan. inta kale geedku waa qodkaas. xaggan ilmo nirgaa ka soo ololhaya. geeli xaaska ahaa koortii maqnayd inay xaggan naga jirtaan filayaa. koortii inaga maqnayd saaxiibayaal halkan ay ka baxaysaa. xeerka geela ayaa wuxuu sheegayaa geela markaad aragto in baa la daba maraa. siiba kolka uu geelu leyrhka kaa haysto weligaaba waxaa la fashaa geelu inuu xagga leyrhka kaa sii xigo. in dhawaaq maqal ah ayaa geela la daba maraa. haddiiba de ay koor maqan tahay weeyaan. haddii kaloo geel maaragtay koorihiisa ay joogaan oo macnaha waxa maqan uu geel koorle yahayna in door ayaa iyadana la daba maraa. wareedhaha saaxiibayaal war hashii doqon ahayd koorteedii ma hayno. hashii niman yahow koorteeda carriga kama yeedhayso. mar baan ismoodsiiyey inay koortaas xaggan ka yeedhayso mase aysan noqonin. marka waxaan filayaa kolley hashaasi guriga biyo ku cabtayoo inay soo dhalman baan filahayaa. hashaa waxaynu u daynaynaa ninkii cabdi ahaa insha allah. innaguna geela intiisa kalena isku ururinaynaa. waa amin gaaban geela marka haddoo kale waxaa weeye markaad 2 nin tihiin ee nin baadi ku maqan yahay geela waxa hadhay baa waxa joogaa laisku ururiyaa. marka biidnillaahi kariim saasaynu yeelaynaa. hadda geelan 3 meelood buu kala joogaa. 3daba waynu isu geynaynaa biidnillaahi kariim. goor dhow salaadii maghrib baa ina haysa insha allah waa tukanaynaa. geelana waynu waxaa weye sii ururinaynaa. halkan saad aragtaanba geed xagara baa isxidhay dhulka. marka waynu jiidhaynaa sidaanu ku mari karraynu ku maraynaa. xidh nagnagigana weeye. xidharka inkaaran oo
ka adag baan mari jiray halkan waan maraynaa halkan waa adagta xaaladeedu laakiin waan maraynaa indhaha Allah inooga duwo waaw waan ka soo dhex baxnay haweeney kolkaad miyiga joogto ee aad welibana ama gaaban marayso makhriboodkii oo kale hase yeeshee aad baadi raadinayso oo degdegna kugu jiro khatarteeda leedahay saydhada badan oo geeduhu inay ku saydhaan baa laga yaabaa dadka qaar baa indhaha ku beela marka aad baa la soo ilaaliyaa safety first bay dhahaan qolyihii aan ka imid marka hore xagga safety ayaa lagu dadaalaa wixii kale waa iska imanayaan mar walbana deganaanshaha la muujiyaa hadday xooluhu kaa maqan yihiin oo gobol ku dhacahayo intaad ordayso waxaa laga yaabaa inay qodax dheer oo sarmaano kugu tagto deedna aad kici weydo ama geed qoofala ku mudo marka si aysan taas kugu dhicin ayr baa si miisaan leh lagu maraa geedaha saan dareemahay dhulkani doogaadu aad u qurux badnaan lahaa waayo waxaan arkaa mirmadooda iyo midhayada isgashay iyo hareeriga iyo xagar caddaha macnaha dhulkan doogaadii markay tahay yani waxaa weye meel ka qurux badan dunida laguma hayo lagu arki mahayo marka insha allah haddii ilaha yidhahdo geelan kaleynu hadda sii ururinayna inagu geela intaxan abaynu daba maray koorta xagga aa ka yeedhaysa biixii aynu markii dhawey soo marree carabkeliga geel rimad oo qabo iyo tan xaaskan eega maqan hashan doqoni ay qabto oo isku yar odag yihiin tan aa yar codroon hashan xaasku qabto marka geelu markuu irmaan yahay maqasha uu wato xaas baa la yidhaahdaa hala yaabin ereygaas hadduu soo noqnoqdo xaas waxaa la yidhaahdaa sidoo kale gabadha dumarka ahee waxay qofta dumare la qabo iyadana xaas la yidhaahdaa ama ninkuba haddee isaga laftirkiisu ninkaas waa hebel waa nin xaasa waa la odhan karaa waxay un sheegaysaa un inuu qofkaasi waxaa weeye uu reer leeyahay caruurna leeyahay marka baryahan dambe dhalinyaradu iyagoo u isticmaalayaan arkay macnaha qofka marba hadduu guursado xaas bay dhahayeen laakiin xaas waxaa la yidhaahdaa qofka caruurta macnaha dhalay ayaa xaas la yidhaahdaa geelan baynu ururinaynaa insha allah geelu gurigaba kama fogo uu dhow yahay dhulku daaqahayana si wacan buu u xaabahayaa keliya waxaanu sameyn waa gudcur waa xilli gudcuraho mar dhow si aynu nirgahaba u dhaafino isku meel baynu geynaynaa waatan nirigtii culaanta hayadeena saabuun gabas baa ku jajaban galabta caanay cabtaayoo caanaa la siiyaa marka waxaan umayn caraf lagu leeyahay nirigtaas waa 2 jir weeye sida ay yidhaahdaan halkan laakiin waa kabil sanad unbay jirtaa saasay tahay haddana waa suntan tahay waa labadii miina yaryaraa iyo shiidakaarkii waa ku yaalaa kaasoo taleefonka iska urursanaysaayoo waa wax dadka un wax la cunto oo dadkiiba iska baratay
waxaan u malayn in calaf lagu yeelan doonaan u malayn wax calaf lagu leeyahay ba waagta 12 bilood oo hore oo lasoo dhaafay hadday hari weydo inkastoo xilligii ugu xumaa ku jirto geel laba jir soo wada marma maqashay laba jirka geelu hadduu dhaafo waxaa weeye waa xilliga la is yidhaahdo neefkaas waa lagu calaf leeyahay wey hadduu laba jirkaba dhaafo marka laba jirka geelu wax aana jecel soomaalida waxay ku maahmaahdaa laba jir geel iyo 60 jir dadeed baa ugu caana jecel baa la yidhaahdaa yaa weliba raggaa la odhan jiray 60 jir rageed iyo laba jir geel baa dunida ugu caana jecel baa la odhan jiray waagii hore waxaase ugu wacneyd baan u malaynayaa waxyaaba badanoo hadda la haystaan la haysanin waagii hore walow hadda laftirkeeda caanihii una ay quality leeyihiin oo caanuhu una ay fiican yihiin dhirtan saan horeba idinku sheegay habartana dhashay saabuuna geel waan isku ururinaynaa haddii alla yidhaahdo geelan iyo waxaan isku geynaynaa geelaa rimayda aynu isu keeni doonaa ee xaggaa jira kii kale boodaanka qabayna waan u geyn doonaa waxaanse yeelaynaa geela kanaynu hore ururinaynaa dabadeed kaa kale rimaynu soo kaxaynaa halkan fuaad baa idin warfaad waran ilaahay mahadiye kow awrtu wax sheegahay may maana arag niyo waxaan u malayn doqon baan geela ku jirino doqon buu ku maqan yahay saasaan u malayn hey geel waxaa weeyaan saaxiibayaal qofka geela yaqaanaya markuu kaxaynhayo wax dhib yar weeye geela lama wada kaxeeyo nirigtii meel daaqaysaba laguma leexdo infact waxaa weeye geela dhan arkayso hadda meeshaa daaqahaya markaan saa isha u mariyo hashan qura haddaan kaxaysto hashan lamaan keligeed haddaan kaxeeyo hal iga hari mayso geelan dhan uu soo raac marka labadan halaad baynu u kaxaynaynaa geela sababtuna waxaa weeye geeli meesha joogay hadda aynu arkaynay geelaas geel aarana buu ahaa geela aaranka haddii alla yidhaahdo labadan halaad baynu u kaxaynaynaa teer iyo habartaa saabuuna iyo macalin rigteedu way naga daba imanayaan wax naga hari doonaa ma jiraan kuwaan dhargihii durba kadlaynta bilaabay
أوه أوه. عشان وهال دقة أدق دقة أدق وي marka geel la dheelmayo 10 jeer baad ku soo noqon mar alla markaad ka dhaqaaqdana way istaagi hay haweeney markaad ku soo dhaqaaqdana way socon geedka dhinaca ka mari marka qanaacad lama laakiin waxa weeye waynu ku xaynaynaa geela oo khibrad baynu ku kaxaynaynaa insha allah saasaa geel la yidhaahdaa markaad sidaa ku tiraahdo oo hasha koorta qabtay iyo hala kale culus aad kaxayso geel aanka oo dhunku daba yaaca uubateyn wax la yidhaahdaa jirto geel waa loo uubateeyaa marka la kaxaynayo geela eed rabto inuusan kaa kala hadhin oo aad rabto inuu ku soo raaco oo loo uubateeyaa waxaa la yidhaahdaa intaa markaad tidhaahdo geelaha hashii maarata kaa dambayso dhan way soo yaac marka waxaa weeyaan saaxiibayaal halkaa waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenii aynu ka horbaxnay geela galabta taniyo intii aynu ku kulmi doonno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo qurbacan yarkee garacaya calaanka qabada kanoo kale oo lugabooda hay nabadgelyo